دين الإسلام سلام، دين الإسلام سلام، دين الإسلام سلام، نهر يسقي دنيانا. دين الإسلام سلام، دين الإسلام سلام، دين الإسلام سلام، يوصلنا إلى مرسانا. دين الإسلام سلام، دين الإسلام سلام، دين الإسلام سلام، نهر يسقي دنيانا. دين الإسلام سلام، دين الإسلام سلام، دين الإسلام سلام، يوصلنا إلى مرسانا. يا أيها العالم، يا أيها العالم، يا أيها العالم، صمتا واسمع شكوانا. يا أيها العالم، يا أيها العالم، يا أيها العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. walaalayaal waa idin salaamayaa meel walba oo dunida ka joogtaan. barnaamijkan insha Allah tacaala waa barnaamij aan ugu talagalnay inaan kaga hadalno nabigeena sallallahu alayhi wasallam dhaqamadii wanaagsanaa ee dunida uu ku soo kordhiyay. wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ahaa adduunkan aynu ku noolahay oo dhan mid loo soo diray inuu u noqdo tusaale, adduunkana uu wax ka bedelo oo uu dunida ka zuuliyo dhaqamadii xunxumaa ee adduunka xilliga ka jiray, isla markaana uu hogaamiyo wanaagga, horumarka, ilbaxnimada iyo alla ku xidhnaanshaha. waxaan rabaa maanta inaan kusoo qaadano kelimadeen insha Allah tacaala ama hadalkeena nabigeena akhlaaqdiisu sallallahu alayhi wasallam siday ahayd. wuxuu nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam inma bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. oo macnaheedu ay tahay waxaa la ii soo diray in aan dhammaystiro dhaqamada wanaagsan ee jiray xilliga ayada ah. taa macnaheedu waxay ka dhigan tahay dadku way jireen dhaqamo ay haysteen, waxyaabo badan oo ka khaldanna waa jireen oo gaalnimadu ay kow ka tahay. saa daraadeed nabiga waxaa loo soo diray sallallahu alayhi wasallam inuu dhaqanka wanaagsan uu dhammaystiro. waxyaabaha ina tusinaya in nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu dadka dhaqanka wanaagsan uu asagu dhaqan wanaagsana uguna yeeri jiray waxaa ka mid a maalmaha ka mid a saxaabada wuxuu ku yidhi alaa ukhbirukum biaxabbikum ilaya wa aqrabikum minii majlisan yowma alqiyaamah. ma idiin sheegaa midka aan ugu jeclahay idinka mid ah maalinta qiyaamahana noqon doona qofka aniga iigu dhow ee meesha aan fadhiisto ama aan joogo agteeda joogi doona ama fadhiisan doona. kadibna saxaabada nabiga sallallahu alayhi wasallam way aamuseen. mar labaad buu nabigu ugu celiyay sallallahu alayhi wasallam uu yiri ma idiin sheegaa qofka aniga maalinta qiyaamaha iigu dhowaan doona. saxaabadu waxay dhaheen nabiga sallallahu alayhi wasallam ay ku yiraahdeen markii saddexaad haan noo sheeg rasuulka ilaahay sallallahu alayhi wasallam. nabigu wuxuu yiri ahsanukum akhlaaqan aw khuluqan, waa midka idinku dhaqan wanaagsan, idinku dabeecad wanaagsan, midkaasa wuxuu maalinta qiyaamaha noqon doonaa midka aniga iigu dhow yiri nabigeena sallallahu alayhi wasallam. Aisha radhiyallahu anha waxa la weydiiyay nabiga calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisu sidee buu ahaa. kadibna Aisha waxay ku jawaabtay radhiyallahu anha kaana khuluquhu alqur'aan. nabiga dabeecadiisu waxay ahayd qur'aan socda ayuu ahaa. bimacnaa waxay ka dhigan tahay nabigeena sallallahu alayhi wasallam qur'aanku sida uu amray buu u dhaqmi jiray, waxa uu qur'aanku ka reebayna waa ka fogaan jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxyaabaha ina tusinaya in nabiga dhaqankiisu uu fiicnaa waxaa ka mid ah inuu inugu dhiirigeliyey inaynu ku dadaalo dhaqanka fiican. hadalladii nabiga sallallahu alayhi wasallam ee dhaxalka galay oo inooga tagay waxaa ka mid ahaa inuu yidhi ina arrajula la yudriku bixusni khuluqihi darajata asaa'imi alqaa'im. qofku wuxuu ku gaari karaa dabeecadiisa wanaagsan qof 12 maanta soomanaa, 12 habeenkiina salaatuleyl u taagnaa, meesha uu gaari lahaa iyo ajirka uu heli lahaa ayuu helahayaa qofka dabeecadda wanaagsan ama dadka sida wanaagsan ula dhaqmo buu yiri nabigeena sallallahu alayhi wasallam. tusaalayaasha iyo dhaqamada uu nabigu ina tusay sallallahu alayhi wasallam ama hadallada uu asagu ku hadlay ee tusinahaya in uu inugu dhiirigeliyay dhaqanka wanaagsan iyo dabeecadda wanaagsan ama asaguba inuu dhaqan fiicnaa way badan yihiin, wax la soo koobi karana ma aha. waxaa ka mid ah hadallada nabiga sallallahu alayhi wasallam laga soo raray
إنه يري نبينا عليه الصلاة والسلام ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن ومعنى هذا أي تهي مبتشربة مالنت قيامها قفك مسلم كميزان كيس وح كعليس أو كردين هي أو مرك خيرك إيا شرطة ليس بربر لغو خيرك أو بدنانا هيو مبتشرو سيدا أو عليس بدني هي دباعدة إيا لقن كوناكسن إيا قفك مسلم كأو إيا ضدك كلا أو كلا نقمو هدايتها هي مسلمين ينقالوا عداسي هدي أولو ذهي إيا هدي كفوقيين با هذا الله النبي صلى الله عليه وسلم لقوري وحاكم عليه الصلاة والسلام إنه يري إن الله عز وجل كريم ويحب الكرم ومعالي الأخلاق أو معنى هذا أيته إلهي ونكسيه ربي وتعالى وقيمة بدنيه وكريم ديقسي النمذا وتشعريه إن ضدكو أي واحد بحياه وتشعريه ومعالي الأخلاق وحكرا الله تبارك وتعالى وتشعريه نقمضا كوة السرسرية ونكسن وتشعريه haddii aan isku dayno in aan soo koobno oon ururino nabiga sallallahu alayhi wasallam tusaalayaasha ka sugnaaday ama hadallada ka soo arooray ama tilmaamaha uu ka bixiyay dhaqanka wanaagsan in lagu dadaalo ma aha wax aynu maalin labo iyo sanado badan toona ku soo koobi karo kaliya laakiin waa tusaalayaal kooban iyo hadallo urursan oo rabna nabigeena sallallahu alayhi wasallam inaan ka tilmaano waxyaabihii uu yiri waxaa ka mid ah nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu ku ducaysan jiray akhlaaqda wanaagsan oo wuxuu dhihi jiray اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت ومعنى هذا أي تهدع النبي صلى الله عليه وسلم كد عيسان جري إلهي وحد يقول توسيسا وحد التوسيسا وحد يقول آدسا أخلاق ذو ونكسن الله يقول توسي وحانا كامل قال يا الله يقول لي حسا لقم مضح حنبو النبي صلى الله عليه وسلم يجري نبقى إنه لقم ونكسنا waxa uga maqraati kacay rabbiga tabaaraka wa taala adduunkan oo dhan uumay asagana soo diray waa wuxuu maqraati ka kacay inuu nabigu dabeecad wanaagsana inuu dhaqan wanaagsana wuxuuna allah tabaaraka wa taala yiri wa innaka la ala khuluqin azim adugu nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam dhaqan wanaagsan baad ku dul sugan tahay ayuu yiri allah tabaaraka wa taala nabigeena alayhi salatu wasalaam wuxuu ahaa dadka uu alla abuuray midka ugu akhlaaq wanaagsan midka ugu dabeecad wanaagsan midka ugu dulqaad badan midka ugu run badan midka ugu naxariis badan midka ugu deeqsiisan midka uu ilaahay ugu talagalay asaga in lagu daydo midaasna waxaan ku ogaan doonaa insha Allah taala kulamadeena dambe ee taxanaha ah ee arintan aynu kaga hadli doono ayaan ku ogaan doonaa intaasaan jeclay kelimadeyda maanta koowaad ee ku aadan nabigeena sallallahu alayhi wasallam iyo dhaqankiisa inaan ku soo koobo intaan kulan dambe iskugu iman doono insha Allah taala انت سنين كجتك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين الإسلام سلام دين الإسلام سلام دين الإسلام سلام نهر يسقي دنيانا دين الإسلام سلام دين الإسلام سلام دين الإسلام سلام يوصلنا إلى مرسانا دين الإسلام سلام دين الإسلام سلام دين الإسلام سلام نهر يسقي دنيانا دين الإسلام سلام